guddiga gurmad qaran ayaa maanta deeq lacageed u qaybiyay ku dhawaad 100 qoys oo ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Sooba ka dhacay 14 Oktoobar sanadkii tagay 2017. deeqda lacageed qaybinteeda oo meel gabagaba ah maraysa ayaa waxaa faahfaahin ka bixinaya sida loo qaybiyay iyo tirada ay dhantahay lacagta dadka la siiyay gudoomiyaha guddiga gurmad qaran Cabdullaahi Maxamed Shirwac. 81 qofood oo ah dadkii waalidka ahaa looga dhintay 14 Oktoobar Zobe iyo 28 Oktoobar Naasa Hablood. dadkaas oo ah dadka aan caruur looga tagin, agoon aan looga tagin, qof uu ka dhintay ama laba ka dhimatay. dadkaas ayaan u yeernay intaana hadda ka hartay dadkii. waxaan kaloo u yeernay dad naafa ah oo dhowr iyo 10 qofood ah, iyagiina 2 qofood ayaa ka dhiman hadda. dadkaas ayaan u yeernay, waana maalmihii ugu dambeeyay oo aan wax bixinaynay ayaan ku guda jirnaa. waxaa dhiman dad sidaas oo kale agoontana waxaa dhiman dhowr qoys ayaa dhiman oo taleefanadoodii qaban waayay. haddana intaana noo soo hartay. waxaan rajaynaynaa inay berrito ilaa sabtiga ay naga dhamaadaan. asbuuca dambeetana barnaamijka inaan soo xirnaan rabnaa haddii alla yiraahdo. gudoomiyaha guddiga gurmad qaran ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan ay soo gabagabayn doonaan oo xisaab xir ay samayn doonaan shaqadii ay qabteen laga bilaabo 14 Oktoobar ilaa bishan lagu jiro Febraayo. Calaadin Muumin Goobjoog, Muqdisho.